وجهي سبورا هذا ودن كوكا حن واجب كيس يقانا ولا يهوى aqoon isweydaarsi hal maalin ah oo ay ka soo qayb galeen ilaa iyo 100 qof oo isugu jira aqoon-yahano Soomaaliyeed oo ku nool dalka Netherland iyo waliba kuwa ka yimid wadamada kale ee Yurub iyo Ameerika ayaa waxa uu ka dhacay magaalada The Hague ee dalka Netherland kaas oo looga doodayay sidii Soomaalidu ay ugu xoroobi lahaayeen cabsida dhinac walba. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ka mid ahaa dadkii lagu casuumay shirkaasi ayaa goobta ka jeediyay khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay isagoo si faahfaahsan ugu hadlay taariikhdii fiicneed ee dalka Soomaaliya uu soo maray iyo raggii u soo halgamay xorriyadda dalka Soomaaliya iyo sida hadda loogu baahan yahay in la helo muwaadiniin ka madax bannaan xumaanta iyo qabyaaladda. islaamnimadii markaas waxa weeye ma adigu sidaad u haysatid baa oo adiga noqday bedelkii kitaabka mise waxa weeye inaynu inaku intaynu wada fadhiisano isku aqal celino iyadoo la xasuusan yahay maalinta Ilaahay la hor joogo inaan cidnaba wakiil cid ka ahayn oo adigu mas'uuliyadda qof walba hay saaran tahay marka waxa imanaysa maxkamadihii baa imanaya qolooyinkan hay'aho ee butida waxaan idhaahdaa gargoyle af ingiriiska butida lagu yiraahdo waa kuwiin la laayay min 19 ilaa maxaakiimtu ay imanayeen 2006 waa butida xilligii butida ay ahaa dad cunki iyo ku diinna may sheeganayn dawladnimana may sheeganayn waxa weeye aniga haye ama soo hoos galo hayla hadle hadii kala gamban kaasinay markaas ay soo xidheen sida siyaad bare oran lahaa de waxa weeye dawladnimadii baan xidhan oo aniga igama hadli karsi hadda diyaar sida dawladnimada qadasa iyo kuna shaad reeraad ayay soo xidheen laakiin se reer hay adeegaya ma jiraan way haday reeraho dhani siday sheegayaan iswada ogol yihiin dee dhulka oo dhanba nabad baa ka jiri lahayd qabqable muu jireena waa la wada tashan lahaa sidii qarannimada waxaan jirtay wadaadadii baa yimiday 2006 anu xamar baan tagay laba jeer baan u tagay in badanna waan wada doodnay markan xamar tagay ayaa nin Ingiriis oo isnaqaanay oo safaaradda Ingiriiska jooga magaalada Nairobi ayaa maqlay in magaalada joogan xamar u socdo waa bishii June markaas qolahna saxaabna hayna isaga ismaana aragay ku Cabdi Maxamed xamar ka doonaya uu waalan yahay wala qalib ila qoladiisu ma joogtay markan soo noqday baan qoladii u faray wax ka dhaca xamar aniga xukumo ku dhig ka xamar aniga xukumo waan soo noqday waana nabad qaba gaalada horta waxa la geliyay iyo kuna hay goosteen iyo ko caajisa gaalada waxaan leeyahay dadkii ajnabiga ya Soomaali walba ra'yigiisa iyo ra'yigeegu inuu yahay qabiilkiisa iyo qabiiladeeda waxa la tirtirayaa dadnimadaadu la tirtirayaa diintaadii ayaa la tirtirayaa waxba ma garan kartid haddii aad reerkii umbaad mathilaysaa marka ma hadli kartid ama wax baro ama ha baranin qof walba waxa marka la yiraahdo asadow reerkaagu waa reer farax qalooc soo maaha ya bes adiga su'aal kuma weydiinano reer farax qalooc ra'yigaas qabaan waayo ya precisely racism regalbeedka ayaa lagu yiraahdaa midab takoor marka wadaadadii markan meesha ugu tagay dhowr jeer ayaan la wada fadhiistay xaruntooda markuu madaxda sheeganaya marna ilaa 40 konton 60 iyagoo wada fadhiya kuwii la lahaa shuurada la lahaa shirkan anigu oran jiray shuurada ma oran jiray shirka iyo shuurada waa isku mid midna af Soomaali midna af Carabi waay diintuna afkaaga inaad ku barato waa lagu ogol yahay doodihiina kala dhex maray aad u fara badnaayeen mid waxay ahayd sidee loola dhaqmaa qoladan bay daba joogto ya miyaa la dagaalamaa mise waa la xaajoodaa ta kale waxay ahayd adduunyada way nagu xeeran waraaq baan u qoray maalin dhow soo bixi doonta oon ku leeyahay timacada anigoo ka duulaya hareeraha ragay naga xigaa hela libtoodii hareeraha laga fadhiyaa tallaabo ma qaadan kartid haddaanad xarfadayn si goolka loo dhaliyo kubadda soo ma taqaan waanad xarfadaysaa soo ma ya laakiin haddaad soo mutxuun dalkaas ma lagu soo fadhiisana qoortu ma laga goyn maca kubadda
markaa hays mutuxina baan ku yidhi waa in xarfada timaada adduunyada lala xaajooda dad wax maqlaya way jireen intooda badani maba fahamsanaynba xataa ka ugu sarreeyay ee maanta madaxweyne markii dambe waxaan soo gaarnay kitaabkan soo gaarnay indha cadde ayaa kitaabka aad u warfinayay iyo qolooyin kale sheekooyin badan ma indha caddena kala dhex maray ay bal iga warramaan ku yidhi magaaladii markaa ahayd ya dad qabqablaha ka ahayd waagaa surwaalka gaaban maan xidhan jirina goorma lagu xidhay surwaalka gaaban at any rate way fara badnaan dadka kitaabka warfinaya dood waxay soo gaadhay war heedhaha diinta iyo qarannimadu way isnaasnuujin karaan way iska kobcin karaan ya sida la isku naasnuujinayana waxayna ahaataa adigu ha iska dhexatin dowladnimada adiguna ha iska dhexatin diinta ya ummadoo dhan ka dhex arag ya marka waxa weeye haddii aan doonano ummaddeenu inay ku dhaqanto shakhsiyan inay ku dhaqanto diintii oo iyagu markaa mas-uuliyaddii qaadaan haddii kale ana dambigii qaaday moogta marka waxa weeyaan meel walba waa in iskuul laga fura diinta lagu dhigto carruurta si wanaagsan meel walbana waa in laga furaa iskuul farsamooyinka kale lagu barto tilmaamtan usoo sii waxa weeyaan ilaahay subxaana allah watacaala iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam midnaba mu odhan kolkaad guri dhisatid albaabkiisa xaggaa u jeedi may odhan qarannimaduna waa guri had dhisanasid waayo marka albaabku inuu xaggan ahaado iyo inuu dolocda ahaado iyo inta jar la fuulo halkaa laga boodo adiga ayay kuu taalla waxay ila maskaxda ku sii ummadii markaa gurigeenna sidaynu u dhisanayno innaka waa inaynu inaku tashanaa markaasi carruurta ha lagu fajaaso markaa kuwan maanta dhashay ama kuwa 10 jirkii markay 20 jir iyo 30 jiraan waa dad diintii aqoon u leh iyaka ayaa isxakamaynaya adigu uma baahanaysid markaa inaad karbaash la dul joogtid uma baahanaysid waxaan ku yidhi sida loo dhisayaa qarannimo Soomaaliyeed iyo dad islaamnimo ku dhaqman laftooda loo helayo waa sida tan kow waa inaynu samaynaa laba xoog waa inaynu dhisnaa haddaynu Soomaali nahay xoog han u bixiyey moral authority xoogii caqiidada oon siyaasadii ku jirin isaga iyo xoogkii siyaasadda dawladda ahaa xoogaa caqiidadu markaasi malaha iyo ku qoryo ma sitaan dawlad ma noqon karaan haddaad halkaa geshid qaybta haddaad geshid dawlad ma geli kartid waayo waxa weeyaan inay dadka had iyo jeer u caqli celiyaan hadday dawladdu saxsan tahay inay idhaahdo dawladdu saasay ku saxsan tahay hadday dawladdu dadka jarka ka tuurasana waar jarkay naga tuurasaa maxaynu yeelnaa dadka lagu yidhaahdo oy noqoto haan lagu kaydiyo xikmad islaamnimo iyo xikmad soomaalinimo lagu kaydiyo oo iyagu markaa u hadlaan dadka laakiinse siyaasad ayna iyagu geli karin dabadeedna laga dhiso xarumo gobol kastaba xarumihii caqiidada la dhaho xarumadaana waxaa ka madax noqonayo ku jiraya guddiyo la soo xulay la iska hubiyey oo ah dad diinta si wanaagsan u bartay si wanaagsanna ugu dhaqmaya ee imaqashida aan ahayn wax ku doonta aan ahayn iyo dad dhaqanka Soomaaliyeed si wanaagsan u yaqaan labadba oo isbarbar fadhiya inay ka taliyaan oo dadka wacyi geliyaan sanad kastana 3 bilood bana mar report ay soo saaraan hay kaloo noqdaan dadka haddii dadku isqabsadaan biyo iyo baad iyo haddii la isku qabsado dadka u kala caqli celiya oo kala wada dadka halkii markaa wixii biyo yar haddii la isku laayahay noqon lahayd laba reer baa islaayay in halkaa lagu xaliyo dawladii aanaba soo dhexgelin walaaltinimo iyo islaamnimo lagu xaliyo iyaguna hay ka madax ahaadaan sida dhaqanka iyo islaamnimada carruurta loo barayo hay leeyihiin kayd maala oo ka madax bannaan dawladda ya oo iyaga carruurta lagu ilaalinayo de ilaan waa bini aadam waa inay noolaadaan dadka meesha ku jiraay wax ku filan la siiyo
سهين اللف أفراد إنه نعرف مشار ونقول تاسي واتاس وحن قبا مركز هدي أرين تاسي هيجري لهاي مركو جاهورير كوريم إيمانية وحا إيمان وحا دتكو أسوجي تسن لهاين واردت في عقيدة محيدة هيدين بالورن لها ميل كالسوني كانتي أو خبرت كانتي أو لسو يقانا إننا يكو wax iskoodu dooneen ay dadku xagaas jihadaas u jeesan lahayn marka dadka lagu oran lahaa dawladda way naga dhimanaysaa intaynu tii kala abuurano yaan la islayn dadka la kala dhaxgelina taasi waa tii caqiidada tii dawladnimadana waxa weeye hadii la dhaho 4.5 laba arrimood ayay jabinaysaa oo runtii halbowle ah kow waxa weeyaan waxba ma wadaagi karno oo isaguna ima malithili karo anna ma mafili karo marka isagu waxa weeyaan faras aniguna dameer baana haddaanu wax iska dhalnana baqal baanu dhalanaa baqashuna ma tafiirmaso marka waa la dabar go'aya waay literal soomaalin gara marka waxa weeye war ma abtirsiinta maskaxda keenta mise ilaahay baa keena كو مركا هورتا walaaltinimadii rag iyo dumarba way baabacaysaa haddaan markaa annagoo gobol ku wada nool oo magaalo ku wada nool oo qayb magaalada neighborhood kaga nool oo jaara haddaanu ka wada tashan weyno iskuuladii meesha ku yaalay maamulkii meesha ku yaalay la yiraahdo xaafadiina u tag adna xaafadaada u tag ya waxaan isku aabahay hooyaday ismay guursadeen haday taasi jiri lahayd ismay guursadeen aniguna ma jiri lahayn marka waxaan uga doon lahay waxa weeye qof walba waa selfish way alxamdulillah inaan dhashay alxamdulillah inaan jiray ilaahay aabahay hooyaday baa ku mahadnaq laakiin haday 4.5 lagu xukumi lahaa waagaasi ma jireen adiguna ma jirteen Soomaali jiri lahaa ma jiro marka genetically wayna masaxasa ya ummadahaana wayna masaxasa ko takalay masaxasa marka waxa weeye islaamnimadii way masaxasa illa dadka muslimkii waxa la yiri walaalaatiin Soomaa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتحاكموا مؤرا لتعارفوا بعد سمع هنا تكون قرتان دي أبترسين عيب معها وأباهين أنا وانو أبترين هو يدينا وانو أبترين لكن سأوكل يحن معي مركا waxay kala baabinaysaa waxa weeyaan walaaltinimadii islaamnimadu ku dhisnayd ayay baabinaysaa marka inaynu raadino sida dawladnimo iyo islaamnimo la isku wadaya aniga sida ila tahay waana inaan khaldanahay waa laga yaabaa waxaan jeclaan inay cid kale soo bandhigto sida la isku wadayo in sida loo kala saaraya la isku ruguna wadaya inay kala tahay dadka moral authority-ga inaynu urursano oo gobol kastaba ka imanaya ya oo iyagu mas'uuliyadoodu tahay sidii diinta loo bari lahaa sidii dadka xaq looga kala siin lahaa aan siyaasadna gali karin waxaan qabaa markaasi 20 sanadood dabadeed inay dhalinyar ku wada barbaartay rag iyo dumarba aqoon diimeed oo teena ka weyn leh oo qof walba mas'uuliyadiisa iyo mas'uuliyadeedii qaadan karo inay soo baxayaan dawlad wax ku khasbasa ama shabaab wax ku khasbayana taa ma keeni karo ugu dambeyn shirkan maanta ka dhacay Netherland ayaa waxa uu muujinayaa bilowga in ururada Soomaalida ee dalkan ay yeeshaan midnimo iyo in ay si wada jir ah u wada shaqeeyaan iyadoo saddexdan urur ay ahaayeen ururadii Danxaaq ama Badahay ku sameeyay sanad guuradii kontonaad ee 1 Luulyo ee sanadkan waxayna ugu baaqayaan dhammaan ururada kale ee Soomaalida ee ka jira guud ahaan Yurub inay yeeshaan isku duubni taas oo ay u arkaan mid kaliya ee looga bixi kara dhibaatada Soomaalidu ku haysata qurbaha kadibna loogu gudbo in dalkii Soomaaliya ay hooyo wax lagu qabto